مقاحدي إن شاء الله تعالى عاو واشدان تهي waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhacdadii aan filayo dad badan inaan wax ka yiraahdo inay iga sugayeen oo ku saabsanayd dhacdadii ka dhacday baarlamaanka Puntland 8 xildhibaan oo la cayriyay arintaas insha Allah taala aan isleeyahay ka hadal soo dhawaado horta ilaahay baadi waxa weeye horta ilaahay xamdigi waxa maanta Puntland taariikh cusub baa ka dhacday taariikhdaas waxa weeye in la arkay warsangali majeerteen eriya hore waxaan u arki jirnay 30 sano oo Puntland dhowr 20 sano dhisnay warsangali maalin walba la cayrinayo marka ilaahay xamdigi waxa caawa inaan halka la soo fariisinoohin anoo leeyaa Cabdirashiid baa la eriyay dhowkii ku xigaysan isagoo joogay baa la eriyay kii tobnaado la eriyay maxaa saasay alxamdulillah taasaa marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno sida dhabta ay wax u dhaceen meesha xaqiiqada hadda rabtaan 8 xildhibaan baa la eriyay waa maqasheen laba waa warsangali nin Cumar iyo nin Dubaysa mid shan waa majeerteen weeye waa nin Ciise Maxamuud oo Maxamuud Saleebana nin Ugaar Saleebana nin Suwaqroona nin Abdiraxiin Saleebana iyo nin Amaale ah iyo nin Barkada oo dhulbaanta 8daas la cayriyay odayaasha xalay waa soo daawaday hadalladooda waa soo daawaday markii hore inaan ka hadlo maba doonayn bal laakiin markaan arkay doodooda waxaan iri inaan ka hadasho baa la doodo xilligii ka hadlahayd baa la jooga ugu horeyntii halka ninkii Cabdirashiid ahaa Cabdirashiid badawada xirtay Cabdirashiid ninka hambaliyo Cabdirashiid gudoomiye hambaliyo de xiniyo kuwa ahay laba dhabar ku sarraaba la soo digtay marka hambaliyo master badamo hambaliyo ku leeyahay waxa weeye oo aan rabaa dadka inaan u sheego baarlamaanka kuwa hadda jooga iyo kuwa la eriyay waxa isdhaamaan male dad waxa weeye isku mida isku doon saarnaa musharaxiin hore soo baabiyay wax ka soo gurtay dalka dantooda ka eeganayay waxaasi ahaayeen maxaa la isku qabtay marka taas muhiima me ragii musharaxiinta jabiye ninkii la oran jiray jabiye saka sanad kasta sakada uu bixiyo agoon kasta oo Puntland jooga waxba ka gaari jiray jabiyo sakada ma bixinay miya aragteen sakada ma saa u sayrinay miya aragteen waa ragii saa jeebkiisa waxa weeye u galiyay saa huuga u suray weey ragaa weey Siciid Dheere odagii generaalka ahaa حتى سعيد ديره 20 سنة أو توتا كو عدادي و 10 سنة مشاهر قاتي 10 كالتنا ووايي رج ما أقول دعاية وحي بس أقول قاضي رج وهرتا ورج النوع عاصة علي حاج ورسنا مرو هلا يوحيري حل بان نذا دليره وبناين وحال يسلها كل العقوة قاضنا يان لكن رج يسمر ما يعني نول بانكو عضيني وكقاضنا يان لكن ما دعي وحال هيا رج سعيد ديره كبحسن واي oo Siciid markuu yiri waxa ma hayo yiri 5 kaliya nasi dadka kala qodob bixnay adu shaqo kan ku codeynina shantiina inta ka dirteen aan u codeyn waay horta xildhibaanadu waa nooca weeye kuwa meesha jooga iyo kuwa tagay waa isku mid waa kii alla wax ka dheefsiyo maxaa isku diray marka waxa isku diray hal si sheer galay waxa isku diray waxa ahay ragga kan waxa la rabay adu saddex nin baa hogaaminayay جروبيا السيمي بأهاين لبعض الناس ورسنجلي ولا عيريي وح مدح مري أو مغضي جعلها قدوميا بحرمانك عبدالرشيد كسيجي سا مغضي إنه وحرمين دين عدو كودجانو أي فريستان ورسنجلي هراء وشيء ولا سكوع وريي كان كسيجا هلا أو فريستا يجان وقف ديكري نوال باو حكش غياسيد وطور لها لبعض ورسنجلي كسيجا عبدالرشيد يو إن على النهار وكهريو عبدالرشيد هلا ريدو قدوميا نقطة هل كاسي أوجاكي نيكا يراهdo badugaaye gudoomiye ku xigeen buu ku seexan jiray ku soo toosi jiray ninka Ismaaciil Salebaan maalintii dhooto seeyga adkaaday wiilka yarka anoo generaal Puntland u soo halgamay gudoomiye ku xigeen ba isagana madax maray ka barkana gudoomiye ku xigeen kala maxaa kula madax maray ragga kan 8 tan oo la cayriyay dadkii xukuumadda waxay ahaayeen muxaafidkeeda ahaa ragga waxa lagu cayriyay waxay ahaayeen guddoonka jagada guddoonka xukuumadda ismahayn
waxa kan DB Wall baan maxaa ku raadayay arinteedii ka hadalnay iyo waxaasan ka hadalnay iyo waa afgobaadsi hadda dadka shacabka waxa laga doonaya taageero laga doonaya waxa kama jiraan xukuumadda Israa'iil ma jirin madaxweynaha Israa'iil ma jirin madaxweynaha dadka uu baarlamaanka ku leeyahay iyagay ahaayeen oo horbooda safarkii ugu dambeeyay ilaa Baydhabo uu istaagayay 3 kamid ah la socday kii ku xigay Nairobi ku tagay 2 kamid ah la socday ragga madaxweynaha ugu dhoodhoobay ahaayeen maxay marka islahaayeen madaxweynaha wixii ay ula saaxiibayaan markooda horeetana waxay ahayd inay ka agdhowaadaan oo gudoomiyaha uu la rido gudoonka la rido hadhowdiin iyaga wax ka dhiso raggaasi maalintii dhowto shirka jaraa'id markay qabteen waxa u jeedeen oo ay hotel ku qabteen inay yiraahdeen gudoomiye iscasil gudoonku waa fashilmay waa inuu iscasilo haddii uu iscasilina talaabo degdeg ah ka qaadayna Saleeman hadaladiisa kamid tahay baduuga ayaa waxa arkaysay jawaabtiisa arkaysay gudoonka loo hanjabay maxaa looga hanjabay iscasil haddii kale xilka la qaadaya xagee xilka looga qaadaya ugu hanjabay ma maqaaxida shiina culay bay leeyahay lahayn ma aniga halkan darbaxa kula dhici lahaa maya micnaha baarlamaanka gacalidiin taagay yahay tiiba ayagii laga horreeyay ragga lahaayeen xasaanada la ka qaadaya oo xilka la ka qaadaya iyagii baa laga horreeyay marka gruubakan hadda xilka laga qaado 8 ah gudoonka u socdeen ina xabad ku dhuftaan beeraman waa laga horreeyay dhac wuxuu waa intaa way in dadku fahmaan baa loo baahan DB Wall iyo waxa kan la sheegayo wallahi waxba kama jiraan waxayse waxba uga jirin maalintaas hadda xilka laga qaadaya 4-5 cisho ka hor waxa cod la galiyay arinta DB Wall gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu yiri madaxweynuhu wuxuu iga codsaday arinta DB Wall oo baarlamaanka ina ka codsaday inaan dib u dhigno intee ogol gacmaha lagu halowda taagay maxaa maalinta loo oran waayay ma ogolin oo loo diidi waayay hal xildhibaan oo diiday ma lahayn hal xildhibaan oo diiday ma lahayn dhowr ka aamusay waa la sheegay inta kale saasa gacmaha loo taagay marka DB Wall iyo sicir barar iyo musuqmaasuq baa la dirinaayo markaa anaga musuqmaasuq la dirinaa hadda aragtaa wasaaradda maaliyadda inta wuxuu dhaho intee fadlan u soo dhacday wallahi oo billahi oo tallahi 8 madaxtooyada ugu badan bay ahaayeen madaxtooyada waxa loo galana waa la yaqaanaa kan yuqor meeligay meel baan u socdaa ken fadlan ken ya madaxweyne ken ya waa la garanaya raggan gudoonka jagaa gudoonka u socdeen laakiin mid baa seegtay war gudoonka baarlamaanka dhexdiisa laga rido gudoonka waxa laga ridaa madaxtooyada laga ridaa soo waa meesha madax ka nool weeye baarlamaan waa gaajo cayr wax looguma dhiibo nin kula mida oo 2000 ay ku soo dhacday u soo dhacdo kama iibin kartid ninka ila rido meesha igu fariisi laakiin xagee ka ridi karto ka iibin karta madaxtooyada marka odayaashii madaxtooyadii iyagoo aan soo marin bay waxay dabceen gudoonka inay dilaan gudoonkiina madaxtooyadii bay macimideen madaxweyne annaga noo socdo adaa lagu socdaa madaxweyne annaga noo socdo xukuumadda noo socdaa madaxweyne ya mashaariicda loo socdaa marka madaxtooyadii bay waxay ka waayeen taageero waxa isku soo haray gudoonkii iyo xildhibaanadii de gudoonka waa ogtiin hadduu doono hoolku cidla ah booranaya tiriya waa dhaceen waa la socotaan marka horta ragga asaasa loo eriyay Cabdirashiidna waa hambalyeynaya Cabdirashiid xiniyaha kuma tuumeyn waa hambalyeynaya hal arrin aan rabaa marka inaan ka hadlo arinta aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye raggiyo xalay calacalay sidoodii ba arkaya calacalaya inuu dhowro isagu tagay maahay todobadii kale oo le dastuur waxa ka hadlaya warmeyninka dastuur ka hadli kara warmeyninka xeer ka hadli kara warmiyidin ahayn nimankii iyadoo dhoobadaareed gudoomiyihii sharaftiina difaaciyay oo xildhibaan cawil markii xeer ilaalintu soo eedeysay isu dhigay oo warqadii xeer ilaalintu ku soo eedeysay guddiga anshaxa garsoorka u dhiibay oo yiri waa sharci darro oo warqadii celiyay warmiyidin ahayn nimankii dhabar jabiyay warmiyidin ahayn raggii markii la weeraray meydka oo yaala ka dul talaabsaday oo ka codayay warbaduugaaye miyaadan ahayn ninkii siri gacanta midiga daa taagto malaha muuqan meesay labadaba saa u taagay markii gudoomiyaha la riday war miyaadan ninka ahayn doore iyo Cabdi Jamaal oo tawaawacaya miyidin ahayn markaanu Facebook ka qaylineenay oo lahayn gudoomiye baa la cayri tolaayay kacooy raggii awoodi kari waayay sida Saadiq Abshir Garaad intay VOA taleefanka ka qabtaan ama daljir ama radio garowe waclaan dhaha wixii halka ka dhacay wax sharci darro ah bay ahayn miyidin ragga ahayn moralka hadda ku hadlaysan muxuu yahay moralka ku hadlaysan hadda nothing ma jiro waxa weeye waxa la yiri god walaal ha qodin hadaa qodo ha dheereen ku dhici doonto moogid
كي أدوه وقدين وكردين بامانتا إذن كعبد الرشيد إنه كجري إنه كجري كيف إنه كجري حسانة حلبان كوح واي كرا مركا حبين ماذا حلبان كوح واي كرا مركا محكمة دي أي حكو شن صناعة كردو لو بدأ على المحكمة حكوت حاجات جوكتا لو بدأ على المحكمة حكوت حاجات جوكتا فيديوغي فيديوغي بانداوضي برلمانكا oo leeyahay dhoobada arag xasaanada laga qaadaya sideed iyo soddon xildhibaan baa soo saxiixay wallahi oo billahi oo tallaahi sideed la cayriyay shan kamida magacyadooda ku jiray markii la yeerinayay haddana ayaa oo inii soo sheergareynaya baluuga ay lambarka tobnaad buu ahaa Cabdi Casiid Saciid Maxamuud manaa ku darnay xasaanada markii laga qaadayay haye hal la tiriyo gacmaha taagan labadaba saas loo taagay dhoobada arag Cabdi Jabaal wuxuu yiri oo hadaladiisa kamid ahaa annaga xasaanad baan ka qaaday xukun maxkamadeed naguma dhicin beelaha iyagu cid ma soo dirsan karaan markii wiilkan Bihidoor magaciisa xasaanada ka qaadeen oo wiilka Bihidoor la keenay dhoobada la keenay miidin cidda ogolaatay oo gacanta u taagtay miidin intiinaba ahayn hal qof oo diiday ma lahayn idinka miidin ku gacanta u taagay marka adeerayaal waxa kan dastuur kuma yaalo waa runtiin xeer kuma yaalo waa runtiin laakiinse ininka waxa kan waddanku asaasay wadadii aashala jeexdeen baa maanta la niqaatiyay marka iska samra dhoobadaaradii dib u maqlay maya idaacadaha meelaha waa leeni ogol yahay ka hadla cidii nooli haysata turkiga soo aado cidii kale oo marti edab la noqonaysa oo dadkooda dhinac ka raacaysa ha ka raacdo magaaladooda dhinac ka galeen wixii jabiye iyo sicid dheere iyo daniga kan iyo wixii laga qaatay musharaxiinta wixii la soo baxa tii aan dhooba kurdeeniyo waxa la soo baxa cunatiina laakiin waxbaan sameeynaa waana la yaqaanaa kanaan nahay maxaa laynu ku yaqaanaa waxa laynu ku yaqaanaa gudoomiyihiinni xalaasha ahaa oo aad doorateen inaad si sharci darro ku rideen waxa la yiri godinteeray dani baa ridamay ay oran doontaan aniga dani ma baarlamaan ku yimi ma cod buu lahaa dani baarlamaan karmo iman codna ma lahayn haddii xataa uu isagu riday waxa la yiri godinteeray ima goyseen haddaan daabkaygu kugu jirin dani hadduusan idinka saa idin soo riixin ma dhowaa ku istaagi lahaydeen kuma istaagteen marka aanu waxaan jecelahay wixii xaqiiqada ay laga hadlaa jecelahay wixii xaqiiqada ay laga hadlo Cabdi Rashiid iyo gudoonkiisa raggan xabada kala hormaray waa xaraan weey kuwa kan xabada lagu dhuftay xaraan cid shacab u danaynaysa oo dantood wada ma jirto nin walba tiisu socday DB Wall baduuga ay DB Wall xilliga Cabdullagaas xildhibaan buu ahaa dadkii ansixiyay oo sideed xildhibaanadii 28 kun ku qaatay buu kowka ahaa عبد العزيز سعيد محمود كعامي ايه ولو تاريخ السحالي تلي بوليس معها بوليس ما صور دسي وكاين لو برلمان كورينا كجرتي وكاين لو رقي دي بي وول خليق عبد العزيز عيي هنا كجرتي وكاين لو دي انا قال لك شيغينا marka waxa idin leeyahay tartiibtiina cabdi ninka leeyahay abwaan anaga eedeyn karnaa waa eedeynayna khayr qabe maaha ha iska xamaasho laakiin idinka ma eedeyn kartaan rag waxaan arkayay leh Cabdi Casiid gitaar buu tubi jiray gitaar abwaan gitaar waa sitay sax weeye laakiin waxaan weydiinayaa baarlamaanka intuu ku jiray miyuu gitaar ka qaatay intuu gudoomiyaha miyuu gitaar ka qaatay shalay markaa dooranayseen ميويدن وغاينو كيرو كتاب تبجري وا اوغيدين marka hadda isaga eeda male Cabdi Rashiid ninka la yiraahdo ininka gitaarka inta ka dhigteen shaqadiisi inta ka dhigteen yaa u dhiibay dubaakan inta lagu sito oo saacis kala taagan yahay dug shibde ama shubbe u bixiyay bal xilibaankii hadla shib aamusmayo shub iga baxoolka saas u bixiyay bal shibde ama shub yaa u dhiibay ininka u dhiibay aniga hadaan gaari aqoon oo gaari ii dhibto tiraado gaariga ka kaxay bil Alex share garay si share garay laba kun oo dawlad si share garay oo gaari ii dhibtaan maxaa iga filanaysaan waxa iga filanaysaan ta gaariga wadada kuma hayn karo moogtay gidaara kan ku dhufo xagga ku dhufo qof kan jiirsi meel walba waa la kuriya Cabdi Rashiid idinka duba u dhiibay dubi marka haduusan xeer garanayn waxa way gitaarka ka dhigteen dastuur garanayn oo inuu kula kufaya hadda sideed buu kula kuftay qab maanta wuxuu rabay inuu guddiga joogtada oo dhan dam kala eriyo kooramka u bixsan waayay bari sideed kale u dagay baa la yiri sideedda kale qab saadam ku xigeenkiisu haduu hadlo qab ku dhufay marka yaa eedale Cabdi Rashiid eedda male eedda waxa la cidii dooratay yaa aniga way oranaya Cabdi Rashiid inuu abwaan ahaa oo dastuur uu shaqo ku lahayn ma ogeyn yaa oranaya
ما جرو مركا هو إني كعقل بطي وإني كعقل بديي وإني كسياسات بديي وإني كديريي مدحتويدو إني كديري مال وإني كديري وإن أنت شيكتا واي ماشي مدحكنول واي ماشي مركا أنت صار ربع لكن هذا دي بيوري نين جيتار هو بعد تلاقي جيتار كنيك تومي أنو كمان دين جيتار كا دبها أو مديبين إذن كأودي بدبا قدوميه إذن هاي أو سير إلبتر إذن كهاي أو حراليو مركو عول ذات صود دعوة يرهس ما دعوين كرتان اللي بانكو حق بقول لها إنه مدحونا سؤال ويديو يا أنتو دبيه كخالي عبد الرشيد وديبي ما أنا أوديبي مدني بقى أوديبي مدك كاي داوري أوديبي ما يا عبد الجمال بطوقة يحلبان هذا لم يتكأب أوديبي مركو حنلاقي هاي حلبان هذا حد على أو قيلنا هذا الكينو وحو قيمة لها شلي مركي لو بداري الردي مد إني كمل ميو هذا ما يا حسانة دقليني كقاضي أو ما أنت اسكت درجينا إنسان أو لذي المحكمة بعنا كقاضي تي شلي لو بداري إني كقاضي سوما سو تاسوما مميت كلام دتكو مكان حسانة عروسين ما يا لو بداري ويني كليان حلبانو بيرها وحن لنا حلبانو بوسس كم عد كلا وصود درسننا markii dooba daareen booskiisi isagoo aan ka tanaasulin oo ay ninka axsaanada ka qaadeen qof kale loo soo keenay aan gacanta u taagteen soo idinka maaha cabdirashiidka aan leedihiin oo ka cabanaysaan shalay meesha ugu hanjabayseen oo lahaydeen waa iscasil haddii kale xilkan ka qaadena soo howlka baarlamaanka maaha soo xildhibaanada maaha kuwiibu idinka dheereeyay kuwaasaa shukaansi baa ku jirteen 8 baa marayseen waa la idin kala furay sideed baa ku soo harteen qac madaxweyne ku dhuftay waxa xaqada inta weeye dani baba madaxweynaha wuxuu waxa weeye waxaan maqli jiray ka yariga qabo oo ka weyn ugu soo daa cabdirashiid baa kusigiisa u socoteen nin aanu hadda sheegi maayo warsagaliya oo xildhibaana baabishi juun ila soo hadlay kalfadhiga kan intaan furmin oo kii hore furmayay waa markaas wuxuu yiri waxaan doonayaa gudoomiyaha rabaa inaan noqdo waxaan rabaa inaan ila shaqeystaan doonayaa وواحد عبد الرشيد محاهلي وحول عبد الرشيد ولا بدل يا دتك ولنا اسفهم وين محتويد اسفهم وين حلبان دي نيو حسكودي كرماها بابا يا اسكا والاريا waxaan ku yiri kaalay dhoobo isagoo aan sanad joogin aan cayriyo bay عبد الرشيد hadda 6 bilood ma joogo isagoo aan 6 bilood joogin hadda aan cayriyo adiga intee lagu cayrinaya 3 bilood ma lagu cayrinaya marka معناها دوريو عبد الجوال iyo in dhaharo markii dambe markuu arkay xaalad seeta inuu ka harayo kursiga gudoomiyaha u muuqday kursiga gudoomiyaha kaasa u muuqday maalintii hore ku tartameen dhooba uga adkaaday wuxuu ku tartameen maxaa ku raahdaayay NTO Cabdirashiid ugu dooranayay isaga uga adkaaday maanta ninka dani ismahayn dani iyo Cabdi Jamaal ismahayn dhoore dani ismahayn Ali Dhahariyo dani ismahayn baduuga ayna gudoomiye ku xeenka u muuqday baduuga iyo dani ismahayn maanta waxay u yiraahdaan madaxweynihii baa cayriye ma jirto madaxweynaha khatar kuma ahayn niman baarlamaan ay ahaayeen wixii xaqiiqada aan sheegay moogta anaga dani u danayn meeno u doodi meeno laakiin xaqiiqada cabdirashiid ay saayeen iyo ninkan cabdicasiis la yiraahdo arintu soo bilaabatay waxa kale oo rabaa halkaas rabaa in aan ka booday mooshin waxa jiray dhowr cisho koor adu aan u maleynaa 3 wiil koor in ahayd in la baa la soo diyaariyay mooshinka markii hore waxa ahayd in la rido labada ku xigeen gudoomiyaha markii qaban waayay oo diiday mooshinka gudoomiye wuxuu qaban waayay wuxuu isir hadii labada ku xigeen la rido waxa iman doonta oo la dooran doonaa laba ku xigeen baduugaayo oo kale marka baduugaayo iyo ay yimaadaan adiga lagu ridi doonaa sidoo kale wuxuu mooshinka ka arkay niman badan oo ursan-galiyo ku qoran marka wuxuu isir nimanka ursan-galiga ahay labada ku xigeen hadii la bedelo iyagu buuxin maayaan xagee u socdaan macnaha adiga saasu marka isugu dhigay isagoo isku badbaadinaya bulabada ku xigeen isku dhigay marka meeshan ragga xildhibaanada ah laba garab ay kala ahaayeen garab gudoonka difaacayay iyo garab xildoon ah ninka gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen oo ku siga difaacanayay xildhibaano saaxiibo maxaa ku rahaa taabiciin lahaayeen kuwa kana xildhibaano 8 gaar saaxiibo lahaayeen intii kala loo kala tartamay waa lagu kala adkaaday qolada tan adkaatay rag xabada la kala hormaray baa meesha yimi deni baan wax cayrin saaxiiba la ahaa deni waa ognahay anaga 8 xildhibaan dadka ugu alleele rag ugu qalqaad badan bay ahayd xukuumadda ninka kaasa ugu qalqaad yaraa baa la yiri Axmed Khayr oo Ciise Maxamuud kaasa ugu qalqaad yaraa baa la yiri maandooto abi xanuunsaday dhakhtar loogu diray
ما قال صدني وحبو حسن شركة كفرصة على الشيء كاسع وقال قادرة وركو بنانكو يا ردك ضد المال استغانوه هميك استانك استوعبوا عشيو ماشي هذاك الجو وانا كور هنا ولا نصعنا مركا مصغار صغير درب عايش غيري كلام غيري كلام غيري كلام غيري كلام غيري كلام غيري كلام اخيرا جستي هدا مصغار صغير هدا رك حلال اللي جميع السعودي سعودي نعلاش توكيال سعيد السعودي ديانه السعوديه دنيا وحسوقي ساسان idin leenahay marka meeshaas waxa weeye xaqiiqada hadaad doonaysaan labada xildhibaan oo labada garab kala labada group xildhibaanada oo kala jaban qolo gudoonka ah oo kursigooda difaacaysay iyo xildhibaano gudoon madax maray Cabdi Jamaal Doore in dhahar oo islaha hadii uu abwaanka ameesha ka turtaan gudoomiyaha noqonaysaan baduugaaye iyo Muuse maxaa ku dhahdaa Siwaaqron Gahayle iyo yarkan Saleebaan oo amaanle oo iyagana gudoomiye ku xigeenka reer bariga oo madax maray xildhibaano nugaalo orday arkamaysaan xildhibaano maxaa ku dhahdaayay mudugo ordaysa arkamaysaan maxaa dhacay sababtoo ah iyo ku xigeen iyo gudoomiye kaliya toon uma socdaan waxa soo raacay dhowr xildhibaan oo dhulbahanta ah oo Ismaaciil Yaremesh u socday oo xaaji uu hogaaminayay iyo ninkii in Arab uu hogaaminayay ninka barkado markii dambe isagu waxa weey ragga ka leexday uu hogaaminayay marka ragga ku sugooda difaacanayay iyo ragga duulaanka ah labada qolada tan xabada isu cabaysteen waa isu hanjabeen howlka noo balana xilka dhac qolada tan xabada laga hormaray meesha lagu kala bixi lahaana howlkaasi ahayd howlka waa lagu kala baxay sideed tana dhinaca dhulka loo dhigay deeni baan meesha joogin xukuumaddiisaan joogin cid kale aan joogin sideeda xildhibaan oo hadda meesha laga cayriyay dadka dani ugu dhowdhowbay ahayd hadday manfac tahay hadday saaxiibtinimo kala tahay hadday safar iyo markuu meelaha aadayo inay la dawaafaan oo raacay tahay dadka ugu dhowdhowbay ahayd DB Wallka ay hadda ku afmacaansanayaan oo ay ku hayaan DB Wall maalintii dhoweyto markuu gudoomiyuu yiri madaxweynaha saas ina ka codsaday yaa ogol fiidiyoga daawada saasa leeyahay hal xildhibaan oo diiday kuma jiraan hal xildhibaan ما DB Wall هذا كيني مرك ما DB Wall هذا كيني واحد هذا كيني تتكعام هذا بواحد الربع اللي يقول شو جيسو تاجر لو قدره تتكاسس على الدنيا واحد ذي هاي حل بانو وحوي وضدي أجحدين وصح وحبد دستور يحل عصوق قادنينا هكلا بحنينا حين هكون قنينا إنك وحلابي دوما مش مسين بالين بري قد ولا قدين هذا قدرنا هديرين كل عدو تموجدين كي أدع قدومي هني كي باكو دعدين كيباكو ذلم كل عليه مركا إسكا سمرة وحوي maalintii hadda cid inay qeelisan helimayso cid inay qeel maalintii hadda dhoobe u qeylin lahaydeen oo oran lahaydeen waxa ka saatan maaha dood kala sameyn lahaydeen hadalkiinaasi maanta garb u ahaan lahaa laakiin ma noqon karo arinta maxkamadda tan ku afka maxkamad baa naga qaaday dhoobo maxkamadda xukuntay soo sheegay idinka xasaa gudoominimada ka qaaday ugama harin xasaanadii baa ka qaadeen ugama harin ninkii lagu soo bedelay baa aqbasheen oo tiraadeen waxa weeye waa xalaal weeye idinka kuwa la ku soo bedelayni yaani kala tashanaya meel walba nin baa muddo iyo nin maxaa ku raadaya ismadiina qoraya baarlamaanka gacanta u taagaya waxba haystaalnina kii waxa haysto tala ku siinaya kaale turkiga kii waxba haysano dhooba la inila hadlaya dhoobo gudoomiyaha ku caasideen maqaaxi weyn oo 5 star ka furtay waa la inila hadlaya kii shaqo u diyaarina oo shaqo geeyban waranayna kii aan shaqo u diyaarahayna war halka inta xukuumad cusub iyo dawlad cusub iyo dhowr ka sano dalku isbedeli doono oo maamulka hadda isjireen ay guddoonka hadda isjireen oo meesha ka bixi doono war ku qor baan leeyahay ku qor halka iska qor baan leeyahay iska qor turkiga waa iska jaban xaqiiqadu sidaa weey ninkii waxa weeye inta wax ka weyn sameyn kara dawlad ninkii madaxa ku taagaya anaga shaqadayda ma laakiin waxaan ogahay nin inta ay leeg sameyn karaa inuu jirin inta ay leeg dawlad nin madaxa ka wargeyn kara ma jiro ninkii inuu ku tala fiicna door waxa xagalool baa lagu sheegaya bahalkii ونيك اللي هو بضوجاي كلامي سيف على الوش ودويليا مجاهد واجا ندور عرض نسيت حقول له الوش ودوي مجاهد ما نيك اللي هو موسم جرو هديس كوين كريم علولا تلفون كاسور تريا قدلايو محل اورنجري ماشي مالها حكا سيدا ويلك عمل خير إن هذيك وزارة مالية كوجو سميسين كقاضي دي كله سنجيف واتقانا هلكا عبد الرشيد الدنيا مري حقك
حقا كسوق قيل هذا عبارة لسه حقا كسوق إن قيل كيل سومر المي حقا كسوق علينا لكن وحبا سمينية كنا سمينية وحبا أدير وحبا أنا نساسا إنه كدينا نصابته سند بهالك قيلي إندي واحد عادين دوما خالد بالوريوي واركاكا وارما هذا شان نين هاللي مني كجرا مايا مجرو نين هذا مجرو وحي عشرة سميسة بابا دلك بوغا كداية هرشد كداية دولته هالصعطو دولته هالصعطو تريك الدنيا هشا جيل كل هذا اللي قلت لنا وعجيني كراجير وعددني كراجير نبلا مقدش وسع مقدش ما هي نيرب هذا نيويورك ضدون هذا وسع بينه دولة والله صعبينه دولة نيكي وحلا يري maxay ahayd ninkii dawlad ka hor yimaada kacandiid weey kacanka ninkii diidaya isaga u taala laakiin anu waa idsanahay Cabdirashiid hore u soco ilaahay kaaga micin hore u soco absolutely waan kulay baarlamaanka shaqadiina qabsada sideed la soo caabi doono degdeg sidii dhoobo yarkii lagu soo bedelay gacanta ugu taagteen kuwa kana maxaa ka qeylinayaan sideed ugu soo horeysoo la keeno ansixiya maxkamadda ka hadlaya maxay tahay محكمة كهالي كلام ملك حق وملك كمال الكرام وحي أي شلي ودل الجحين قاتية قاتية ومدو مرقبة كتاي مرخانتان كان هاي دلك واحد جوجني دوبو فيديو جيتي حتى صور جيا انتو ذا شن كميد باصوص صحيحي شن كميد باصوص صحيحي أرنتا هدي محمود سليمان أنا كجرو واقعين لهين محمود سليمان حتى العيري عيسى تليان الرومجو عيسى محمود الله وخير حتى كجرا عدالة ما ماشي كنا عليه ولا عدالة ما ماشي كنا عليه مركبتها ما عندنا غادي مثلا ما عندنا غادي حل ما عندهم أو إسبارة نكتا أو مدحوينا بعلا وامشوا كبحيا حل ما عندهم أو قدومي هيسا مالك استير هذا واحدة ما أنت عود ميسا قالوا شرع ساس الله سبحانه شرعي أما دستور كيالو أما حير كيالو بدوغاي عبد الجمال دور محاضر سليمان موسى محل أورنجري ججبسي كججبسطي ما أنت على كججبسطي كي أجحدهم ما أنت كاسالة إنه كنا غيا بطلان كدايو ساس علينا هاي دولة نمدو وشقين إنسان دالكو هدو عدو لطيو قدوميه بارلمانكا أو إذنكم معاكم هذاي لعكتكم قادتين أو أهردين ميدكي بارلمانكا هورتسي عليها كتلابستين أو كدر عديسين كاسبا ودكو حنقولها النغوة أنا قصدي ديني نلاجير إذا كان سوق يليدي دين شلاه دا إنكم صعبتوا مسين ما أنت أنا على سعيد يا دولة يا عبد الرشيد هراي الصعلة مركو حليه هاي وحبها إسحي جنينا وحوار دماتي خلاص فنش ومدى الصومالي وحا وشيغينا نما كاسي ديني ما نعيريو وحودو كان يقبو او كوين يقصو داوية نين عبد الرشيد لنهو او اي قدومية كدكتين او قدومية هودي الشرعي يغانا ايو انت سي شرعي دراء او طورين اي كو بدلين او جيتار وشتاي وحتى اي كو عايان انت كدقين الدبا وديبين بالد المري شبده اما شو قاعده نيكي هادنا سيدد بو كدفت سيدد كلا وا ودارانيا maanta koramka u buuxsan waayay gudiga joogtada dhan buu rabay inuu laandheer dhalay nin caaya la ii sheegay nin caaya doorow xingalool hadalada caayada kala ahayd waa la ii soo sheegay laakiin cajaladaado duuban baan hayaa min digala markuu inuu Yusuf Jibriil joogay oo aanu halka aan ka qeylayo lahaa ninka hal iska qabto lahaa maxaa tiri ninkii dhabar joogo taleefanka qaban waay miyaa ahay adigu miyaa ahay ninkii dhabar joogay inta danu ku diro gaariga shidaal kugu shubay miyaa inta min digala tagtay aadan soo celin markii dhalinyaradu ku mudaharaaday oo inta keentay maxaa tiri Cabdirashiid gudoomiye kaliya maaha waa garaadkaygi weeye garaadkii gobolka weeye ninka miyaa ahay saan loo dhabar jabiyay سيمان تقالسا مركب ما تقالسا ما جستو تتكاغ دينع كراع شعب كي شلو قدومي راعي هديك له دورشي سومالان بسودو انت كو داف مايو تي وكيل سومالان سودو انت كو داف مايو ميشا وحبا ادير وا بودرك نيما مالين بقاونتا جبكا ولا سو مري marka لو كلا عزور ما يدن لو كلا عزور مايو marka hadalada xingalool kale Cabdirashiid waakan garaadkay adoole garaadkaygi weey adoole waa duubantay taasa reer xingalool insha Allah soo shidaya waxyaabaha hadalada been Cabdirashiid annaga waxaan rabnaa oran karnaa laakiin ininka ma oran kartaan waa ka doorateen waa ka la tartanteen waa kii tartanka in kaga adkaaday
يا كيوي بالله بقى إن كل شيء ما كاسديد دنين أو قايلين إياه أو ليش عندنا أنا كل ذي بالله بقى إن كل شيء ما أنت دوبل ذي أو وحي اللي وقع الصومالي ودن أيام وقروا كدعي بالحال نين أو حلية أو إذا عاد كهلك الصار لحنا كحلمان أو برلمان كبطلة كوبية هي هل نين بقى كهلي أو إذا عاد ورسي ساعد قبش كلام بعدها كوا ورسنجلي سكست ولا هذا وري هلا ما يا كان يتجي كسيسان دوننا عبد الجمال ولا تلني وركسيجا اسكدا بان دحني ها ku tartami heli meesid laakiin doorashaasaan ugu xalaalaynaysaan ina adeero ka joog wallahi uu naga diiday heli meesid baan ku yiri wala la hadlay boqol qof aan kula hadlay iska daabal kursiga heli meesid laakiin in Yusuf Jibriil ba la dooranaya isaga la wataa aduu nin mucaarada